السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، 10 رمضان كانوا بلوضي. Guys, we started for the lesson of Ramadan inshallah. Today I'm gonna show you how I make my bajiyas. سيدا عن أسمي بجيها أربع إنا إذن الشرقرة إن شاء الله. I have got مونغا دال ودير تمحال ليجر سلبوكا أو نقانا أنا ريكو فردانا هاي سلبوكا واي أو فيقن ومحوها نظيف ما شاء الله باشان بجيه آدي وفي عنده وانا رقيس 99 بي واي بعدان 500 جرام كجرته حين نقوني سلو بكيري إبر ما شاء الله تبارك الله وحبضاني نقوني مركا قصتيدنا ويبضاني سا. Guys, I'm gonna share with you inshallah the munga dal, how I make my bajia. I'm gonna add here 1 cup of sweet bajia and half cup half kisa. I have half cup half. I'm gonna soak water beyond kukasa. I'm gonna leave this water about like 2 hours. I'm gonna leave here about 2 hours to soak inshallah. I'm gonna wash them very nicely later on. كبعد سفيعا أو لقايا أحبابي في الله إن شاء الله صاسي إلى الصعدة مالك ما شاء الله باشان والرقيس is very economic ما شاء الله is very cheap 99p only all this packet ما شاء الله you will feed maybe about can eat maybe 15 people. All this packet is gonna serve 15 people. Small bowl bajiyas I'm gonna make inshallah. I'm gonna show you later on how I make. waxaa idin tusin doonaa sidaan u sameeyo waa raqiis ma sha Allah tabarakallah waana 99 b hal baan iska dhig adiga hal baan waa anaga agteena maqaan dollar intee noqon doonto dollar maybe $2 ama $3 ee lamid ah afurki ma sha Allah tabarakallah bajiyi Soomaali la kasay oo dhadhanki lahay amal ku noqonaysa insha Allah. markaan soo qamiirinayna meeshaan ku dhaafayna biyaha ilaa 2 saacadood kabacdi biyaha ka daadina waa dhaqa hadana kabacdi saan u sameeyay tusin doona insha Allah ila socda. Okay asxaabteedii waa kan maxay tubaashi aan soo qasay waa kana biyaha ku jirta waxaan ku darayaa xoogaa tuun iyo xabad oo maxaan lahay ukun marka insha Allah intaan ku shubaynaa intaan transfer ku sameeynaa ila socda insha Allah. Okay intaan ku soo shubay hadda waxaan ku darayaa ukuntii ukunta ku darayaa inshallah so shiidayna inshallah. I'm gonna inshallah blend together ma sha Allah saanan ka soo dhig waa tan saanay u eg tahay marka inshallah waxaan sameeynaa hadii Ilaahay idmo waa dubaaya waa ila arki doontaan say ku soo baxdo. Okay ahbaabi waa dubaynaa ahbaabi waa kan inshallah saanay u ekaatay so watery but doesn't matter you have to hold your hand like this dimalaha pretty slowly in the oil like that so kale tartiib wurtiida again like that just slow saan ugu ridaa kasta. This fried rice is really nice and tasty guys. I forgot to tell you I put some salt. cusbaan ku dar asxaabi aan ka iloobi haday idima sheegin xoogaa yar cusba inshallah. This is for our lesson for the Ramadan inshallah. If you want to you will wash your hand. If it's too sticky wash and again go back. وهكذا أصحابي سوف تصبح سنة كده ما شاء الله تبارك الله
وكاس أصحابي سانا كدي ما شاء الله تبارك الله معان كذا وحان كده الجلاع هاي والقيابة يعني كده سليدنا مع بيسو so soft ما شاء الله تبارك الله مركا هلا هسن سودو another half I'm gonna keep my fridge inshallah as long as in the fridge is gonna have much tastier ما شاء الله تبارك الله مركا أحبابي وكاس إن شاء الله داكيشين لايك سبسكرايب إن شاء الله كومنت and share وأنا كم هتسنتين رمضان كإلهي سبحانه وتعالى عافيماد إنه بدنا وقارسي وكاس عشرة رمضان كمديين كفائدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.